haddii aad fahmi leedahay micnaha saxda ah ee noloshaadu ay leedahay saddex goobood booqo. inta badan qofku markuu saddexdan goobood u booqdo yacni isagoo moral ahaan u faraxsan yahay kama soo noqdo. haddii uu faraxsan yahay uu ka soo noqdana yacni waxaad dareemaysa qofka inuu si wax mudkiisa u qaldan yahay. goobaha isbitaalada halkaa waxaa ku ogaanaysaa in caafimaadkaadu aysan jirin wax ka muhiimsan. qofku maalintuu caafimaadkiisu wax ka qaldamaan dhaqaale wax walba oo hanti ah oo noloshiisa haysto wuxuu diyaar u yahay inuu ku bixiyo si uu caafimaadkiisa u heli lahaa. sidoo kale halkaa waxaa ku ogaanaysaa in caafimaadkaadu uu yahay noloshaada saxda ah. qof hadduu marba aad caafimaad haysanin nothing waxa uu yahay ma laha. health is everything. hantidaada saxday waa caafimaadkaadi. goobta labaad aad booqanayso waxa weeyaan booqo xabsiyada. halkaa waxaa ku ogaanaysaa inaadan maanta aad haysatid xurnimo, in maanta aadan lagu haysan dembiyo, in maanta dembiyo xitaa ma aha dad baa ama xabsiyada looga haystaa dembiyo aysan jirin. in maanta aad haysatid xurnimo, maanta waqtiga aad free u tahay waxaad rabtid ku samaysan kartid, aysan cid xoog ule aysan jirin ama cid xagee u socota aysan ku dhahayn aysan jirin. halkaa waxaa ku ogaanaysaa in xurnimada aad maanta haysatid aysan jirin wax ka qaalisan. sidoo kale booqo qubuuraha. halkaa waxaa ku ogaanaysaa iyadana in maanta aad nooshahay, in shalay dadkii adiga kula mid ahaa maanta geeriyoodeen oo ay carada ka hoos mareen. adigana waxaad ogaanaysaa in maalin maalmaha ka mid ahi aad ka hoos mari doontid dhulkaan aad ku socotid, dhulkanu noqon doona saqafka kaa koreeya. sidaa darteeda marna noloshaadu sidaan ma ahaan doonto. caafimaadkaada waxaa iska bedeli doonaa, berito way dhiman kartaa, xurnimada aad maanta ma haysan doontid. waxaa la yidhahdaa sidaa darteeda maadaama intaa ay dhici doonaan samee wax uun positive maalinkaaga. qasab maaha inaad buur dhistid, samee wax uun oo wanaagsan oo noloshaada yacni aad dhihi kartid dadii yacni wax wanaagsan baase. qasab maaha in aad maxaa la yidhahdaa haween aad samaysid oo adigu awoodin ama rafad badan aad ku maraysid, laakiin do something is good. inaad qof hadal wanaagsan aad ku dhahdid, inaad wadada wax ka qaadid, inaad wax uun aad istaqaysid, inaad maanta wax uun oo wanaagsan noloshaada usoo kordhid, caafimaadkaada ka shaqaysid, in maxaa la yidhahdaa wax uun aad maanta xirfad aad baratid, in cilmi aad baratid, inaad diintaada wax ka baratid, inaad qur-aanka akhrisid. do something is good. samee wax uun oo wanaagsan oo positive. sidoo kale halkaa waxaan ku ogaanaynaa